waxaan u gudbayaa qodobka saddexaad oo ah installing active directory. marka maraba Windows 7 inaan ka dhigo markaasi server, waxaan ka dhiganayaa computerka Windows Server 2008ka. waxaad daawanaysaa start button-ka, waxaad qoraysaa run, kadib waxaad leedahay enter. intaadan hawshaasi bilaawin, ugu horeyn admin in uu ku furan yahay administratorka iska hubi. haddiisu ku furneen, soo kici administratorka. marka waxaad leedahay Windows R ama start button-ka fur oo soo qor run. kadib waxaad leedahay DC promo version soo install kareynayo active directory. kadib waxaad leedahay enter. wuxuu bilaabi doonaa hawshiisii. markuu ku keeno shaashadan oo ah welcome message-ka, taasoo ku sheegayso in markaasi active directory domain service-ka installation wizard-kiisa la bilaabayo. waxaad klik ku leedahay next. kadib waxaad sii leedahay next. kadib waxaad check ka saaraysaa create new domain in a new forest. kadib waxaad leedahay next. wuxuu ku leeyahay in domain-ku markaasi waxaa jiro markaasi magac guud uu lahaanayo serverku, and magacaasi sida microsoft.com buuka ayaa qorayo. aniga waxaan ka dhigayaa haatan Farah. marka small ayaanu qaadanaya. okay, farah.com. kadib waxaan leeyahay next. markuu kuu soo bandhigo shaashadan, waxaad iska leedahay next. waxaad sii leedahay weli next. then DNS-ka markuu kuu soo bandhigo server, idana waxaad leedahay next. kadib message ayaa soo bixi doono caution ah, waxaad iska leedahay yes. after tani waxba kama bedelaysid, waxaad leedahay oo keliya next. wuxuu ku weydiin doonaa password kaasoo ah mid compulsory ah in markaasi uu ka koobnaada xuruuf, kuna jira markaasi in punctuations, numbers iyo markaasi xuruuf caadi oo letters ah. marka waxaan leeyahay passwordkayga caadiga ahaa. kadib waxaan iska leeyahay next. waxaad sii leedahay weli next. hadda wuxuu bilaabay installationkii serverkii in uu hawshiisii bilaabatay. waxay qaadan doontaa xoogaa, marka waan u soo laaban doonaa. waxaad check ka saaraysaa marka reboot on compilation. okay, markii uu dhammaystiro serverku, waxa uu soo kicin doonaa computerkaagu, wuxuuna ku keeni doonaa shaashada. waayo inuu isjimiyo computerka
uuna isa soo taaro waxaa suurtagelisay rebootkii hadday aynu jaayka saarnay. haatan waxaan u gudbiyaa inaan ogaado kombiyuutarkaygu inuu server yahay in kale anigoo fiirinaya administrative toolskii in lagu soo daray functions markaasi aanan hore ugu jirin.